Tottenham Hotspur ayaa markaa ku soo biirtay loolanka ku aadan difaaca kooxda Juventus ee Demirala. Maamulka kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa markaa qorsheynaya ololaha ku aadan xidiga AK in dib lagu celiyo gigada Stamford Bridge. Manchester City ayaa markaa sheegtay in sanadka cusub ay xoojin doonaan dalabka ay ku doonayaan xidiga Umtiti ka tirsan kooxda Barcelona. Atletico Madrid ayaa sidoo kale xaminaysa inay markaa heli karto saxiixa xidig u dhashay wadankaasi Uruguay ee Edinson Cavani. Tobraha kooxda kubadda cagta Tottenham macalin Jose Mourinho ayaa markaa sheegay in uu dib Premier League ugu soo celin doono xidiga hore Manchester United ee Marwan Fellaini. Laacibka kooxda kubadda cagta Inter Milan Lautaro Martinez ayaa markaa la sheegaya in uu ku dhow yahay ku biirista kooxda kubadda cagta Barcelona. kooxda ka dhisan horyaalka wadankaasi Talyaaniga Inter Milan ayaa markaa sheegtay inay xoojin doonaan sanadka cusub qorshaha ku aadan xidiga kooxda kubadda cagta Chelsea ee Marcos Alonso oo ay u arkayaan in ciyaaryahankaasi uu noqon karo xidigaha bartaameedka kooxda kubadda cagta Inter Milan ay ka doonayaan bisha January suuqa kaliibsiga ciyaartoyda. 28 jirkaani ayaana markaa loo arkayaa inuu noqon karo mid marka la midoobi karo wada shaqayntii ku aadana macalinkiisa hore ee Antonio Conte. laakiin rajo walba waxa la leeyahay waxa waqtiga kan xidigaasi ka tirsan kooxda kubadda cagta Chelsea Alonso uu noqonaya laacib markaa u dhawaan kara ka dhaqaaqista gigada Stamford Bridge waqtiga kan xaadirka. rajo walbaba waxa la xusay in maamulka kooxda kubadda cagta Inter Milan ay aad markaa u doonayaan inay markaa xoojiyaan wada hadallada ku aadan xidigaasi Alonso ayagoo u arkaya in laacibkaasi waqtiga kan xaadirka uusan fursad wacan ka haysanin booskiisa joogtada kooxda kubadda cagta ee Chelsea. Inter ayaa markaa noqon karta kooxda ugu horeysa ee heli karta saxiixa ciyaaryahankaasi Marcos Alonso maadaama ciyaaryahanku aad markaa u xiiseenayo xiriirka xoogan ee ka dhaxeeya Antonio Conte. laakiin rajo walba waxaa la xusayaa tobabarihii hore kooxda kubadda cagta ee Chelsea Antonio Conte in markaa muhiimadiisu ay tahay in ciyaaryahankaasi uu ka soo ababixiyo horyaalka wadankaasi Ingiriiska si laacibkaasi uu dib ugu celiyo horyaalka wadanka Talyaaniga. kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur ee ka dhisan horyaalka wadankaasi Ingiriiska ayaa Arsenal iyo Manchester United kula biirtay loolanka ku aadan difaaca kooxda Juventus ee Demirala. ciyaaryahankan u dhashay wadankaasi Turkiga ayaa si weyn u soo jiidanaya kooxahan ee ka dhisan Premier League maadaama laacibkani wacdaro xoogan oo markaa ku soo bandhigayo horyaalka sarada wadankaasi Talyaaniga. madaxda sare ee kooxda kubadda cagta ee Juventusna toddobaadkii ugu dambeeyay ayay gabi ahaanba sheegeen in ciyaaryahankaasi reer Turkiga ee Demirala uu si fudud uusan kaga ambabixi karin kooxdaasi. waqtiga kan xaadirka laacibkaasi ayaa lagu qiimeynaya adduun dhan 15 milyan oo lacagta ganiga. laakiin Tottenham iyo kooxda kubadda cagta Arsenal Manchester United dhammaan waa kooxaha ka soo jeeda Premier League oo si gaar ah u daneynaya saxiix ciyaaryahankaasi. maamulka sare ee kooxda kubadda cagta Juventus waa ay aqbali karaanba in ay lumiyaan ciyaaryahankaasi reer Turkiga ee Demirala laakiin waa inay heleen lacag cash ah oo ay markaa lagu qiimeynaya ciyaaryahankaasi Demirala. haddii kooxahaasi Tottenham iyo kooxda kubadda cagta Arsenal Manchester United ay dhammaantooda ay aad u xiiseeyaan ciyaaryahankaasi waa in ay bixiyaan qiimaha kaashka ay kooxda kubadda cagta Juventus doonaysa inay markaa ku xoreeyaan xidiga reer Turkiga ee Demirala oo loo arkayo difaacida waqtiga kan xaadirka sida weyn ee kaga dhex muuqanaya sirada wadankaasi Talyaaniga. waxaana laacibkani tan iyo xilliga uu ka soo muuqday kooxda kubadda cagta Juventus uu wacdaro xoogan oo ku dhigay kana yaabsaday kooxaha aadka ugu xifaaltamaan horyaalka wadankaasi Talyaaniga. waxaana loo arkayaa inuu ka mid yahay difaacida waqtiga kan xaadirka ugu wanaagsana. dalabyada ugu faraha badnaa waxa uu ka soo gaaraya xidigan reer Turkiga ee Demirala horyaalka wadankaasi Ingiriiska. waxaana ka soo gudbinaya Chelsea kooxda kubadda cagta Arsenal iyo Manchester United. waana rajada ugu ballaaran oo la leeyahay saddexda kooxood ee ugu macquulsan waa Tottenham oo dhawaan ku soo biirtay dalabka ciyaaryahankaasi Demirala. Arsenal iyo Manchester United hore oo dalabyadeedina markaa kaga gudbiyay 22 jirkaasi u dhashay wadankaasi Turkiga ee Demirala. mar haddii kooxda kubadda cagta ee Chelsea loo fasaxay dhinaca iyo suuqa inay markaa ka soo helaan dhowr ciyaartooy markay u arkayaan inay samata bixin karaan mustaqbalka kooxda kubadda cagta Chelsea. tobraha kooxda kubadda cagta Chelsea Frank Lampard ayaa ku jahwareysan dooqida marka uu doonayo ama uu bartaameed ka dhiganayo suuqa kala iibsiga. waxaana uu dalbanaya ku dhawaad 6 ciyaartooy oo marka uu arkayo inay ku wanaagsan yihiin ku soo biirista gigada Stamford Bridge ee kooxda kubadda cagta Chelsea. waxaana ciyaartooydaasi bartaameedka oo ah xil ciyaareedkan ee kooxda kubadda cagta ee Chelsea waxa ku jiraan qaar ka mid ah ciyaartooy hore u soo maray kooxda kubadda cagta Chelsea oo marka loo arkaya inay marka bandhig wacan ay ku soo bandhigaan tartamada kala duwan ee qaaradaas Yurub taa oo ay marka loo arkay in ciyaartooydaasi wax weyn xifradooda kubadda cagta ee marka ku soo kordhay.
waxaa ka mid ah xidiga kooxda kubadda cagta ee Panamot AK oo markaa ka mid ah ciyaartooyda waqtigan xaadirka kooxdaasi horeyna u soo maray kooxda kubadda cagta Chelsea ayaana markaa la sheegay kooxda kubadda cagta Chelsea inay u qorsheynayaan adduun dhan 40 milyan oo lacagta banka rajo walba waxaa la xusayaa in tababaraha kooxda kubadda cagta Chelsea Frank Lampard uu aad ula dhacsan qaab ciyaareedka ciiraankani maadaama laacibkan uu dhashay wadankaasi Holland ee AK oo sidoo kale markaa ay aad u xiisaanayaan labada Manchester oo ay markaa sheegeen in ciiraankaasi uu yahay difaac khatartiisa leh markaa ay ku tilmaamayaan inuu laacibkaasi uu ka mid yahay difaacida waqtiga kan xaadirka sida weyn kaga dhex muuqanaya Premier League tababaraha kooxda kubadda cagta Chelsea Frank Lampard ayaana markaa sheegaya in ciiraankani uu noqon karo midka ugu dhow ee markaa ku soo biiri kara ayadoona warbaahinta Britain ay markaa sheegayaan in AK dadaalka xoogan uu sameeyay tan iyo xilliga uu ka dhaqaaqay kooxda Chelsea inay tahay mid markaa qiimihiisa la gaarsiin karo ku dhawaad 75 milyan oo lacagta ganiga balse waxaa la xusayaa in kooxda kubadda cagta ee Chelsea ay ku heli karto adduun dhan 40 milyan qiimo walba ee xidigaasi AK waxaa laga yaabaa in arrinkaasi ay ka hor istaagi karaan labada Manchester oo ayana markaa baahi xoogan u qaba dhinaca daafaca AK-na waxay u arkayaan ciyaartooyda waqtiga kan xaadirka ugu muhiimsan maadaama laacibkaasi AK uu markaa u yahay xidig waqtiga kan xaadirka si weyn u soo jiitay kooxaha ka dhisan horyaalka wadankaasi Ingiriiska waxaana loo arkayaa ciyaartooyda waqtiga kan xaadirka ka dhex muuqanaya suuqa iibsiga kooxda kubadda cagta Chelsea waxay qorsheynaysaa sanadka cusub in AK markaa ay ku soo guulaysaa saxiixa kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa qorsheynaysa sanadka cusub inay u dhaqaaqaan saxiixa ciiraanka ka tirsan kooxda kubadda cagta Barcelona Samuel Umtiti waxaana loo arkayaa ciiraankaasi inuu markaa u soo dhaqaaqi karo Premier League waana rajada ugu weyn ee xil ciyaareedkan leedahay kooxda kubadda cagta City oo baahi xoogan u qabta inay markaa hesho xidigaasi Umtiti maadaama waqtiga kan xaadirka ay muuqanaysan jab aad u fara badan ee kooxda Manchester City dhinaca kala horeynta horyaalka wadankaasi Ingiriiska ayaa tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester City macan Pep Guardiola waxa uu leeyahay waa inaan sida ugu dhaqsiya badan xoojina difaacida aan doonayno inaan ku soo biirno kooxda kubadda cagta City haddii aan ku guul dareysano oo wax natiijo aan ka gaari weyno suuqa kaliibsiga ciyaartooyda bisha January taasi waxay ka dhigan tahay in kooxda kubadda cagta Manchester City loo yaababa xitaa in aysan ka soo dhex muuqan karin ka qaybgalka xil ciyaareedka soo socda tartanka horyaalka qaaradda Yurub ee UEFA Champions League niyadjabkii xooganaa ee kooxda kubadda cagta Manchester City ay markaa kala kulmeen kooxda ay magaalada Manchester aad ugu xifaaltamaan ee United-ka ayaana markaa la xusayaa in arrinkan ay tahay mid ay ka sii fogeynayso inay markaa u dhawaato kooxda kubadda cagta Liverpool oo sanadkan ay ka go'an tahayba inay ku guuleystaan horyaalka wadankaasi Ingiriiska Premier League sidaba markaa uu xusayo tababaraha kooxda kubadda cagta ee Manchester City macallin Pep Guardiola waxaynu doonaynaa inaynu helno ciyaartooy tayo leh oo dhinaca difaaca ka ciyaara si aynu markaa u daboolno baahida iyo guuldarooyinka faraha badan ee markaa soo gaaraya kooxda kubadda cagta Manchester City weli rajo weyn ayaynu ka leenahay inaynu markaa ku guuleysan karno horyaalka wadankaasi Ingiriiska laakiin muhiimadeena waxay tahay inaynu helno difaacida xilligan aan dareemino duldalada kooxda kubadda cagta Manchester City Samuel Umtiti ayaa kooxda kubadda cagta Manchester City doonaysaaba inay u dhaqaaqdo maadaama laacibkani ee markaa u dhashay wadankaasi Cameroon laakiin dhalash ahaan sita ee wadankaasi Faransa ee Samuel Umtiti ayaa sidoo kale aad loola xiriirinayaa labada kooxood ee Chelsea iyo kooxda kubadda cagta Manchester United balse macallin Pep Guardiola ayaana markaa doonaya in arrinkan uu kaga hormaro isbedelka ku aadan kooxaasi Chelsea iyo Manchester United dalabka xidigaasi Samuel Umtiti kooxda Atletico Madrid ee ka dhisan horyaalka wadankaasi Spain ayaa ayana markaa rajeynaysa in magaalada Paris ee wadankaasi Faransiiska ay ka soo ambabixiyaan sanadka cusub xidiga Edinson Cavani oo ah wariyaan halistiisa sita waxaana laacibkaasi markaa la xusay in uusan ku qanacsanin waqti kale inuu markaa uu la sii qaato kooxda Paris Saint-Germain laakiin maamulka sare kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ayaana markaa sheegaya in ciyaaryaankaasi ay ka baqayaan in uu dalbado mushaaraad aad u fara badan uu ka qaato kooxda Atletico Madrid haddii uu aqbalo wada hadallada ee markaa kooxda kubadda cagta Atletico waxay markaa rajeynaysaa in ciyaaryaankaasi ay qorshe fiican ay markaa ay u dhigaan si laacibkaasi ugu qanco waana rajada ugu weyn ee kooxda reer Spain Atletico Madrid ay doonayso in ciyaaryaankaasi ay ka faa'iideysato qaybtiisa weerarka wadarta uu markaa goolash ahaan ugu dhaliyay kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain ayaa ah 195 gool oo markaa u suurtageliyay kooxda kubadda cagta
ee Paris Saint-Germain tan iyo xilliga uu ku biiray asagoo markaa isbedelo xoogan uu sameeyay muddadii uu ku sugnaa. xidigan ayaa kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain waa Edinson Cavani uu ku biiray sanadii 2013 xilligaasi uu ka soo ambabaxay kooxda Napoli ee ka dhisan horyaalka waddankaasi Talyaaniga. adduun dhan 64 milyan oo lacagta Euroga iyo kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain waqtigaasi markaa ku iibsatay, balse Atletico Madrid ayaa rajeynaysa sanadka cusub inay heli karto ayadoo wali ay dhumaalaysanayaan maalqabeena ka soo kala jeeda wadamada Shiinaha iyo Mareykanka oo dhammaantood doonaya inay ka faa'iideystaan dalabka xidigaasi Edinson Cavani. Tobraha kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur macallin Jose Mourinho ayaa markaa doonaya in Premier League uu dib ugu soo celiyo xidigii hore ee kooxda Manchester United ee Marwan Fellaini oo waqtiga kan xaadirka ka dhex muuqanaya horyaalka waddankaasi Shiinaha. 31 jirkan u dhashay waddankaasi Belgium ee Marwan Fellaini ayaa saaxiibo gaar yihiin macallin Jose Mourinho waxaana uu doonayaa inuu adeegsado qaybtiisa qadka dhexe asagoo doonaya in kooxda kubadda cagta Tottenham Hotspur uu ku xoojiyo, waana rajada ugu weyn macallin Jose Mourinho uu doonaya in arrinkan uu kala xiriiro xidiga hore kooxda Manchester United ee Marwan Fellaini. rajo walba waxaa la xusayaa in tobraha kooxda kubadda cagta ee Tottenham macallin Jose Mourinho uu doonayo in arrinkani ay noqoto mid ay ku soo guuleysan karto kooxda kubadda cagta Tottenham Hotspur bisha January sanadka 2020 ee foodi nagu saysa. waxaana uu arkayaa in Marwan Fellaini uu wali looga baahan yahay inuu ka sii dhex muuqdo markii loo eego isbeddelka horyaalka waddankaasi Ingiriiska. waxaan doonayaa inaan markaa aan la xiriiro xidigaasi si aan kaga dhaadhiciyo Fellaini qaabkii uu dib ugu soo laaban lahaa Premier League, waxaana la jeclaystay inuu ka mid noqdo kooxdeeda cusub. ayaa markaa laga soo xiganaya tobraha kooxda kubadda cagta Tottenham macallin Jose Mourinho oo rajeynaya in xidigii hore Manchester United ee Marwan Fellaini uu dib ugu soo celiyo Premier League. ciyaaraanka ka tirsan kooxda kubadda cagta Inter Milan Lautaro Martinez ayaa wakiilkiisa waxa uu qirayaa in laacibkaasi uu qarka u saaran yahay inuu ku biiro Stadio Camp Nou ee kooxda kubadda cagta Barcelona sida warbaahinta waddankaasi Talyaaniga ay qorayaan. waxaana la xusayaa in ciyaarankani ay tahay in uu markaa uu kulan la qaato kulan ciyaareedka tartanka Champions League oo ay labada kooxood ee Inter Milan iyo Barcelona ay ciyaari doonaan 10ka bisha aynu ku guda jirno, waana muhiimad gaar ay siin doontaa inuu la kulmo qaar kamid ah maamulka kooxda kubadda cagta Barcelona. arinta xoogan ee wada hadalka Barcelona iyo kooxda kubadda cagta ee Inter Milan ayana markaa u muuqan karta in laacibkaasi Inter ay markaa u fududeyn karto inuu u dhaqaaqo horyaalka waddankaasi Isbaanishka. Barcelona waxay doonaysaa in ciyaaraankaasi reer Argentina ay markaa ka faa'iideysato ayadoo ay u arkayaan mustaqbalka waryaanka kaliya ay doonayaan inay markaa ku bedelaan xidiga Luis Suarez oo markaa ay sheegeen in uu dhamaado waqtigii ee kooxda kubadda cagta Barcelona. sidoo kale waxa ay kooxda kubadda cagta Barcelona ay rajeynaysaa in arrinkani ay markaa soo gabagabeeyaan kadib kulan ciyaareedka ay markaa iswajihi doonaan Inter Milan iyo kooxda kubadda cagta Barcelona 10ka bisha December aynu ku guda jirno.